kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa Bulqaas Media ku soo dhawaada faallada wararka qodobka maanta aan idinku haynana waxa uu yahay Faransiiska iyo Turkiga oo qarka u saaran in dagaal u dhex maro dawladda Faransiiska ayaa waxa ay hanjabaad xoogan ay hawada ay u maraysay madaxweynaha wadanka Turkiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyadoo xukuumadda Faransa ay sheegtay in aysan u dul qaadan doonin faragelinta military ee Turkiga uu ka wado wadankaasi Liibiya madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in Turkigu markaasi uu ciyaarayo ciyaar halis ah faragelinta Turkiga ee Liibiya si ay u taageerto dawladda Ikhwaanul Muslimiinka ee markaasi fadhigeedu uu yahay caasimadda Tripoli ayuu yiri Faransiisku waxa ay kicisay xogaga jihaadiyiinta iyagoo siinaya lacag hub iyo koox cusub oo argagixiso ah oo ka timid Syria si ay ugu dagaalamaan dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika waxaan fursad u helay in aan si cad aan ugu iraahdo madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaan u arkaa in Turki ay maanta ciyaar halis ah ay ku ciyaarayso Liibiya oo ay ka soo horjeedo dhammaan ballanqaadyadii ka soo baxay shirkii Berlin ayuu Macron ku yiri hadal uu la wadaagayay madaxweynaha Tunisia Kais uma dul qaadan doono doorka Turkiga uu ka ciyaaraya Liibiya Faransiisku waxa uu taageeraa ciidamada qaranka Liibiya oo uu madaxda u yahay General Haftar sidoo kale waxa generaalkaasi taageera amaba taageera uu ka haystaa dalalka Masar Imaaraadka Carabta iyo Greega mar uu ka hadlayay madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi ayuu madaxweynaha Faransiiska Macron waxa uu sheegay in hogaamiyaha Masar uu leeyahay sababo sharci ah oo uu markaasi kaga walwalo gardarrada Turkiga ee Liibiya Macron waxa uu yiri walwalka dhabta ah ee aad muujiseen oo ah mid sharci ah waa midka uu qabo buu yiri madaxweynaha wadanka Masar Abdel Fattah al-Sisi tani waa mowduuc badda Mediterranean-ka oo anaga na saameynaysa maxaa yeelay maanta laga bilaabo Liibiya maalin walba ragga iyo dumarku waxa ay ka cararayaan dhibaatooyinka ka taagan dalkaasi Liibiya si ay Yurub ay u yimaadaan miyaad u malaynaysaa inaan Turkiga u ogolaan karno muddo dheer in dagaalyahaniinta Syria ee jooga dalkaasi Liibiya ay markaasi ku sii nagaadaan marka la eego wax kasta oo aanu ognahay Macron ayaa su'aal galiyay bishii May 27keedii sirkan oo ah markab xamuul ah oo qarsoon oo inta badan ku shiraacda badda madow watayna calanka wadanka Tanzania ayaa waxa la sheegay in uu markaasi uu ku sii jeeday dekada Gebis ee wadankaasi Tunisia waxaana la sheegay in uu markabkaasi sidoo kale uu ka hor yimid markabka lagu magacaabo Forbin oo ah markab dagaal oo Faransiisku uu leeyahay markabka dagaal ee Faransiisku uu leeyahayna waxa uu go'aansaday in uu u soo dhawaado si uu u kormeero si uu u fuliyo cunaqabataynta hubka saaran ee wadanka Liibiya laba markab oo kuwa Turkiga ah ayaa dardar geliyay si ay u ilaaliyaan markabkaasi xamuulka ah waxayna ka hor istaageen Faransiiska in uu sameeyo kormeerka markabkan xamuulka ah oo loo maleynayay in uu dawo gaarsiinayay Tunisia waxaana uu joogsaday dekada Liibiya ee lagu magacaabo Misrata si uu u gaarsiiyo taangiyada M60 gantaalada Hawk iyo calooshood u shaqaystayaal dhowr maalmood kadib ayaa markab kale oo Faransiisku uu leeyahay oo lagu magacaabo Corvette oo ah markab dagaal isla markaana hoos taga taliska NATO ayaa si uu isugu dayo in uu markaasi kormeero markabkani lagu magacaabo Sirkin waxa uu isku dayay inuu ku soo dhawaado laakiin mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayaa mar kale u yimid badbaadinta markabkaasi xamuulka ahaa deetana markabka Corvette waxa uu bilaabay in uu shito qalabkiisa xakamaynta dabka waad ku mahadsantihiin dhageysiga faalladaasi warka oo idinkaga imanayay Bulqaas Media anigoo Cabdirasaaq Bulqaas ayaa idinla socodsiinayay fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar haddii aad tahay macmiil soo noqday fadlan hanaga iloobin in aad gambaleelka aad furato ama click aad siiso si aad u hesho warbixinaha cusub ee aanu soo dhigno channelkan